waxaan jeclahay in aad warbixin kooban naga siiso ujeedada socdaalka aad ku timid waddankan Mareykanka. bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horeysa farxad bay tahay inaan idinku imaado stuudiyo waan idin salaamayaa idinka iyo intayna daawanaysaba. halkan waxaan imika joogaa waa in maalintii afraad. ujeeddadan u yimi runtii waxay ahayd inaan la kulmo madaxda dowladda Mareykanka iyo hay-adaha iyo ashkhaasba inaan la kulmo oo uga warramo horumarka Somaliland ay samaysay iyo dhinaca siyaasadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca abaaraha laftigeeda. waxaan kaloo inaan la kulmo jaaliyadda reer Somaliland ee halkan degan. si wanaagsan bay noogu dhacday. xubno baarlamaanka ka tirsan laftigeeda waan la kulmay. ilaa imka si wanaagsan ayay shaqaas runtii noogu qabsantay. maxaa kaaga soo baxay kulamadaas markaad la yeelatay markaan eegno dhinaca dowladda Mareykanka iyo xubnaha baarlamaanka ku jira aad ka dhawaajisay? wallahi kulamadaas oo dhan si fiican baa naloo soo dhaweeyey. si wanaagsan baa naloo dhageystay. waxaan runtii aanu u sharaxno u cadaynay danaha ka dhaxeeya labada wadan Somaliland iyo Mareykanka iyo sida loo baahan yahay loo soo xoojiyo. dhaga furan baan la kulanay alxamdulillah. su-aasha xigta arrinta baryahanba aadka loo hadalhayay waxay ahayd heshiiskii shirkadda DP World ee dekadda Berbera. waxaa jiray waxyaabo fara badan oo intii heshiiskaasi uu socday ama la soo diyaarinayay aanay dadku ka warhaynin, laakiin markii heshiiskii uu dhacay oo uu dhammaaday laga war helay. waa tusaale ahaan saamiga ee dowladda Itoobiya ay ku leedahay dekadda Berbera. bal dadka na daawanaya iyo kuwa na dhagaysanayaba u sharax halka uu ka yimid saamigaas ay Itoobiya ku yeelanayso dekadda Berbera. waxaan doonaya runtii halkan inaan ka caddeeyo heshiiska aanu la galay shirkadda DP World wuxuu ahaa mid muddo soo socday, mid cid waliba ay la socotay, saxaafadda si ballaaran loogu baahiyey. wax qarsoodiya muu ahayn. dad khubaraaba nala shaqaynaya, looyaraa nala shaqaynaya, cid waliba way ogeyd. waxaa la geeyey arrinkii baarlamankaa la geeyey, waa lagaga dooday, waa la ansixiyey. runtii wax qarsoodiya muu ahayn. heshiiskii la ansixiyey waxaa ku jiray qodob odhanaya labada qaybood amba labada daraf waliba saamiga uu leeyahay cidduu doono wuu la qaybsan karaa haddii cidda kale ogolaato. tagaas baa ku jiray. laakiin wuu waqtigaysnaa soo ma? yacniga intaa siduu waqtigaysnaa waqtiga dhinaca labada dhinac ka mida uu saamigiisa qoladuu doono siin karo ama ka iibin karo waqti xadidan buu lahaa. maye waxunbuu ahaa un in daraf waliba marka heshiiska la galaba horey baa laga iibin karay. daraf waliba inuu cid kale uu la qaybsan karo saamigiisa hadday cidda kale raalli ka tahay bay ahayd. markii runtii aanu eegnay ujeeddada laga leeyahay ballaarinta dekedda oo runtii cidda loo ballaarinaya dee ugu badan ay isticmaali doontaan waa waddanka Itoobiya. waxa aanu isla garanay runtii inay dani ugu jirto dekedda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyo xarakaadkeeda iyo isticmaalkeeda in lagu martigeliyo dowladda Itoobiya laftigeeda. dowladda Itoobiya laftigeeda waxa weeye waa maalgashade. maxay ku yeelanaysaa marka? waxaan u baahanahay maalgashade, amba ha ahaado Imaaraati ha ahaado, amba Etoobiyaan ha ahaado, amba Mareykan ha ahaado, wuxuu doonaba ha ahaado. waxaan doonaya cid maalgashatay maxaa idhahdaa dekedda wax laysa siinayaa ma jiraan. cid waliba saamigeeda la baxaysa wixii kusoo hagaagay maalgasheena dee way la imanaysaa. maxay tahay hawsha DP World marka haddii Etoobiyana ay maal gashanayso? DP World heshiiskii aabbaha ahaa iyada ku jirto, ujeeddaduna ay ahayd laga dhawaajiyey in iyadu horumarinayso oo ay maalgelinayso dekedda oo ay deked caalamiya ka dhigayso. Etoobiya halkee bay ka soo gashay? halkaa runtii waxaan jeclaan yara waadixiyo. dekedda waxa maamulaya shirkad la wada leeyahay. maaha DP World baa maamulaysa, waa shirkad la wada leeyahay. shirkadda waxaa la yidhahdaa DP World Berbera. waxaa wada leh iminka DP World baa wada leh iyo Somaliland. laakiin waxaanu ku heshiinay guud ahaan tafaahum baanu gaadhnay guud inay Etoobiyana ka soo qayb geli karto. markay ka soo qaybtan waxun bay qayb ka noqonaysaa shirkadda maamulaysa la wada leeyahay ayuunbay qayb ka noqonaysaa. shirkaddana waxa dee maamulaya saddex geesood ay noqonaysaa. shirkad saddex geesood ma noqonaysaa. heshiiska markii baarlamaanka la marinayay waa tii buuq fara badan uu ka dhacay.
xildhibaanada qaar waatay ku doodayeen iyo sharci yaqaano hargeysa jooga in heshiiska la hor keena baarlamaanka oo waxaa la hor keenay aanu heshiiskii ahayn si ay u akhriyaan waxaa muuqatay in si degdega heshiiskii lagu mariyey baarlamaanka oo uu ansixiyey ma moodaa marka in arrintan la daboolayay ilaa inta heshiiska uu ka dhaqan galo oo baarlamaanka uu ka ansixiyo waxaan doonaya arrinka inaan kuu caddeeyo inaan arrinkaas aanu jirin wax la qarinayey oo la doonayay mar dambe jeebkan lagala soo baxaa runtii ma aanay jirin heshiis weliba tiirar buu leeyahy wixii baarlamaanka la geeyey wuxuu ahaa tiirarkii heshiiska waa laga munaaqashooday waa laga dooday waa la ansixiyey tiirarkaa waxaa ka mid a saan kuu sheegayba optionka odhanaya amba doorashada odhanaysa labada daraf cid waliba saamiga ay leedahay cid kale la qaybsan kartaa marka runtii wax ka duwan maaha fundamentally wixii lagu heshiiyey lagu ansixiyey baarlamaanka waayahay haddaan u nimaadno airboortka berbera iyo saldhigga dowladda imaaraadka ee carabtu ay halkaasi ka samaysanayso waxaa la hadal hayaa in dhowaan heshiiskaas isaguna uu dhaqan geli doono oo isticmaalkii ama adeegsigii imaaraadku uu bilaabi doono ee airboortka berbera duulaanna halkaasi ay ka qaadi doonaan sida warbaahin adiga ku soo xiganaysa oo dalkan maraykanka ah ay sheegeen arrintaasi ma jirtaa in imaaraadku uu kaga duulayo airboortka berbera yeman iyo xuutiyiinta horta airboortka waxa loo isticmaalaya waxa weeye waa meel ay ciidanku isticmaali doonaan dabcan mar hadduu airboort yahayna diyaaradana way isticmaali doonaan oo rayida maya diyaaradii ma isticmaalayaan waa militariya airboort madaar cusub baa la sameynayaa oo ay leeyihiin civilian diyaarada civilian saldhigyadu waxay leeyihin ujeedooyin fara badan ma laho keliya in meel lagaga duulo meel lasoo duqeeyo mararka qaarkood waxay noqdaan meelo laisku tababaro mararka qaarkood waxa weeye surveillance amba sahan meel laga sameeyo mararka qaarkood waxay backup garayeen operations kale iminkaba imaaraadku waxay saldhig ku leeyihiin casab eritrea ayay ku leeyihiin wixii ay uga baahan yihiin meel ka doona casab baana uga dhow yeman casab way kaga duulaan yeman laakiin soo ma dee dabcan waa bes wey marka taasaaba uga sii dhowbaba annaku fili mayno isticmaalka maxaan idhahdaa saldhigaasu inuu keeni doono yaniga khalkhal iyo khasaare dheeraada uu u keeni doono gobolka annaku runtii fili mayno waxaanu ka eegnaanaa hadaad runta doonayso waa dhinaca fawaa'idka iyo dhaqaalaha arrinka dagaalka ka socda yeman insha allah waxaan rajeynaa inuu ku dhammaado wada hadal iyo nabad annagu xaggaanu ka eegaynaa waxa weeye waa horumarka la socda saldhigga horumarkaa waxaa ugu horeeya oo ka mida waddo laga sameynayo berbere ilaa iyo wajaale waxaa ka mida madaar kaloo la dhisaayo waxaa ka mida mashaariic caafimaad mashaariic maxaa waxbarasho mashaariic biyo ayaa ka mida runtii waxyaabaha aan ka faa'idi doona insha allah saldhigga khalkhal dhinaca ammaanka ah inaanu keenaynin baad sheegtay saldhiggaasi ujeeddadu waxay tahay oo beryahanba ay halkan ugu soo badanayeen saldhigyada ciidamada dalalka shisheeye ay ku yeelanayaan dalalka ku yaala gobolka geeska africa in halkaasi ay ka maamulaan marinkan muhiimka ah ee la yidhaahdo baabalmandeb waddamo iska soo horjeeda baa labada dhinac kala iman kara carabtu waa tan halkan joogta iiraan waxaa laga yaabaa dhanka kale inay soo fadhiisato oo ay timaado haddii dalal iska soo horjeeda ay labada dhinac kala fadhiistaan mid walbana uu doonayo inuu halkaa maamulo khalkhal ma iman karo horta biyaha baabalmandebku waa biyo yani caalamiya sharciga caalamigaaba ayaa runtii u saamaxaya cid waliba inay adeegsto cidima laha cid u diidi kartaa ma jirto waa waddo wey cid u diidi kartaa ma jirto dabcan wey saldhigyo badan baa ayaa imika khaasatan hadda ka jira jabuuti wadamo badan waxay saldhiga u samaysana waa dano ay ka leeyihiin caalamka 30% maraakiibtiisu waxay maraan halkaasay maraan marka dabcan wadigooga beri dhowto piracy baa ayaa ka dhacay oo dad badan baa afduubay maraakiib marka khatar baa jirta iyadoo laftigeeda burcadbadeednimo si taa looga hortago loo ilaashado badeecadda meesha maraysa iyo maraakiibta iyo hantida ayaa dee saldhigyo badan ka samaysmeen runtii tusaale fiicanba weeye in saldhigga micnihiisu aanu ahayn dagaal iyo diyaarad iyo duqayn iminkaba ilaa 7 baan u malaynaya saldhig baa ka jira jabuuti diyaarada kama wada kacaan oo duqayn ma wada galaan isku afgarateen in aanay imaaraadku ka duulaynin berbere oo aanay dagaal ka qaadayn dhinacay doonaan ha weeraraan
wata wuxuu waa saldhig military mar hadduu saldhig military yahay wax walba waa u furan yihiin wax walba si walba waa loo isticmaali karaa si walbaba waa loo isticmaali karaa laakiin anigu wuxuu ku soo kordhinayo oo cunfiya runtii ma arko waayo sidaan kuu sheegay iminka waa imaaraadku casib bay ku leeyihin wixii duulaamadii ay samaynayaan dee iminka halkaasay ka sameeyaan ugama baahna berbera dabcan somalilan muddo bay maamul lahayd oo gooni isu taag ay ku dhawaaqday oo ictiraaf caalamiya ay raadinaysay inkastoo weli aanay dunidu aqoonsan heshiiskan dhinaca milatariga ah iyo kan dekadda berberaba warar soo baxaya dhowaantan waxay sheegayaan in dowladda soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya ay wax ka ogaayeen oo lagala tashaday oo ay wax ka saxiixeen heshiiskaasi arrintaasi maxaa ka jira ana wuxuun baan kuu sheegayaa labada heshiisba anigaa saxeexay warqaddii aan saxeexay laba meeloodoo la saxo keliya bay lahay meel saddexaad may lahayn dhinaca somalilan iyo dhinaca maxaa shirkadda d b world iyo dhinaca somalilan iyo cid ka socota maxaa dowladda imaaraadka cid ku saddexays saxeexaas ma aanay jirin ma jirtay warqad kale oo aan taa ahayn oo la saxiixay warqad kale oo la saxiixay ma jirto marka dowladda federaalka sinaba uguma lug lahayn heshiiskan somalilan iyo imaaraadka dhex maray anugu waxaan kuu sheegay in heshiiskaanu gallay annaka iyo imaaraadka iyo annaka iyo d b world waxaanu ku gallay heshiis laba darafa ayaanu ku gallay soomaaliya berberi soomaaliya kuma taalo berberi somalilan bay ku taalla soomaaliya dee waxay ka talaysaa soomaaliya somalilan dowladdeeda iyo baarlamankeeduna waxay ka taliyaan somalilan laakiin dunidu maadaama aanay weli idin aqoonsan sow berbera dhul soomaaliya ka tirsan uma taqaano maadaama aadan weli aqoonsi helin horta runtii dee markii ugu horreysay aanu heshiis la gallo cid kale maba ahaba cid waliba waxay og tahay xaqiiqda taalla dhulku waxa weeye magaalada berbera waxay hoos timaadaa waxay ka mid tahay dalka somalilan waxa maamula oo xukuma dowladda somalilan waxa wax laga weydiiyaa oo lagala heshiiyaa waa dowladda somalilan dowlad kale maaha waaya haddii aan heshiiskaas halkaas uga baxno ma waxaa jira cabsi maamulka somalilan uu qabo oo ah in dowladda federaalka soomaaliya ay awood ku maquuniso sidii ay ugu soo celin lahayd midnimada soomaaliya cabsi noocaasi ma jirtaa maya somalilan dadkeedu waxay go'aansadeen kii inay gooni isu taagaan iyagoo markaa eegaya dhibaatadii ka soo gaadhay 30 sannadood ay wada jireen iminka waxaa ka soo wareegtay 26 sannadood baa ka soo wareegtay somalilan waa wadan waa runtaa yaniga kursi kuma laha AU-da amba kursi kuma laha UN-ta laakiin jiritaankeeda dee cid walba way ictiraafsantay cid walba way arkaysaa waa wadan booliiskiisa leh ciidankiisa leh oo dadkiisa iyo shicibkiisa iyo dhaqaalihiisa leh cid khasbi kartaa ma jirto waaya maadaama aanay jirin cabsi ku aadan in dowladda federaalka soomaaliya ay idin muquuniso maxaa keenay in madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu yidhaahdo amaba uu ka hadlo weliba si cod dheera uu dunida uga codsado in aanan cunaqabataynta dhinaca hubka laga qaadin soomaaliya hubka iyo warwarkiisa annagoo keliyaba maaha haddii meel ay dhibaata ka taagan tahay amba deganaansho la-aan ay ka taagan tahay hub lagu soo kordhiyo waa sidii dab xaabo kale lagu shiday ayuunbuu noqonayaa dabcan waanu ka warwarsanahay hubkaa la keenay soomaaliya runtii hubba uma baahnaba guri walba wuu yaala dukaan walba wuu yaala meher walba meel kastaba wuu yaala shacabka soomaaliyeed waxay u arki karaan somalilan inay ka soo horjeedo in ay soomaaliya degto oo ay nabad noqoto maadaama cunaqabatayntii hubka oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay codsatay in laga qaado si ay nabad ugu soo dabaasho dalka aad adinku ka soo horjeesateen oo aad diideen ma laydin arki karaa sidaas waxaan halkan kaaga caddaynayaa inaanu jecelahay soomaaliya inay degto oo nabad noqoto oo barwaaqo ku noolaato annaka dan baa noogu jirta deganaansho la-aanteedii iyo dhibkeedii dani nooguma jirta annaga laakiin waxaanu qabnaa waddanka hub baa ka buuxa waxaanu annagu cabsi ka qabnaa hubkaa cusub ee la keenayo in loo isticmaali karo si toos iyo si dadbanbaba in lagu dhibaateeyo dadka reer somalilan dabcan annagoo keliyaba maaha
laakiin gobolkao dhanba uu ka qaba laakiin dowlad gobolka ka tirsan oo weli ka hadashay ma jirto oo tiri yaan cunaqabataynta hubka laga qaadin Soomaaliya una malayn maayo in hub la keenaa uu xalilayo mushkiladda Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay dhexdooda ay ka heshiiyaan si anagu baanu sameynay waxay u baahan tahay dowlad bay u baahan tahay tayale oo sharciga iyo nidaamka ku dhaqanta waxaa loo baahan yahay in maleeshiyooyinka iyo hubka laga ururiyo demobilization in la sameeyo ayaa loo baahan yahay laakiin hub dibadda laga keeno keligii mid xalilaya maaha mashaakilka maanta jira waayahay wada hadal baa jiray u dhexeeyey dowladda federaalka iyo Somaliland halkee buu ku dambeeyey wada hadalkaas shirkii ugu dambeeyey waxaanu ku galnay Ankara bishii Abril 2015 bay ahayd waxaanu isla garanay in dub loo dhigo ilaa iyo inta dowlad cusub laga dooranayo Soomaaliya iminka dee madaxweyne cusub ayaa la doortay dowlad cusub buu soo dhisay waxaan jecelay buu yidhi oo runtii aan doonay inaan sii wada hadalkii annagu weli wada hadalkii diyaar baanu nahay nasiib darro 2012 ilaa iyo 2015 wax midha dhala oo la taaban karo iminka waan kuu sheegi karo runtii kamay dhalanin laakiin waxaan rajaynayaa inay mataqaana siniyada dowladda hadda iyadoo saa raalli ka tahay in wada hadalla dub loogu furo ujeeddada wada hadalkuna waxa weeye sidii meel laysula dhigi lahaa masiirkaas oo ah xagga Somaliland sidii aynu u dhisi lahayn oo geeska Afrika uga dhisi lahayn wadamo xora oo ay Somaliland ka mid tahay oo iskaashi iyo wada jir iyo mataqaana dhaqaale maxay dhahdaa isu furan leh anaga taa way runtii ujeedadeedu waayahay muddo dheer baa ka soo wareegatay waqtigii Somaliland ay gooni isu taag ku dhawaaqday ilaa iyo haddana aqoonsi ma jiro intee buu marayaa hanaanku halkee buu marayaa si goormaadse is leedahay Somaliland aqoonsi buuxa bay dunida ka heli kartaa horta marka ugu horeysa gooni isu taagnimada xitaa haddii aan iminka aanan weli lana ictiraafin kumaanaan khasaarina waa ka faa'iidin nabad baanu ku helay dowladnimaanu ku helay harumar baanu ku helay wax kastoo runtii himaladayada ahayd baanu ku helay oo gooni isu taagnimadu ayna siisay waxa noo bedelayana runtii ma aragno ma jiraan amba nooga wanaagsan ictiraafkuna wuu imanayaa cid kastoo aanu la kulanno oo aanu u sheegno arrinka Somaliland cid kastaaba runtii way soo dhaweysaa waxa weeye waa a matter of time yani waqti un bay naga xiga insha Allah waxaan aad u kalsoonahay inaan muddo badan la sugi doonin ictiraafka Somaliland yuu ku xiran yahay marka ictiraafka Somaliland ma Somaliland ma beesha caalamka mise Soomaaliya sidaan u doonana wuu ku xiran yahay caalamka sidaan u qancinana wuu ku xiran yahay dowladda Soomaaliya waxba idin kaga mixin in cid baa ku ictiraafaysay dowladda Soomaaliya waxaanu jecelahay inay nala aragto in ictiraafka Somaliland iyo gooni isu taaga Somaliland uu dan u yahay Soomaaliya laftigeeda annagoo kale dan nooma gobolkoo dhan buu dan u yahay Soomaaliyana dan buu u yahay wax badan baanu Soomaaliya tari karaa oo la qaybsan karo waayarnimo aad baad u mahadsantahay adiga mudan kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Saad Cali Shire oo nagu soo booqday daarta VOA ee Washington